شغل الفاضل كإيشان كلا وحا إلا هاي ninkaygu waa nin fiican sidiisa kaleeto laakiin cilad ayaa jirta ayay leedahay oo gacantiisa wax galaa kama soo baxan ayay leedahay si kasta haddii la yeelo inuu waxna siiyo oo ilmihii u wax siiyo oo aniga wax siiyo oo dhaqaalihii ilaahay siiyo uu wax naga siiyo ma ogola ayay leedahay mararka qaar xataa waxa la cuno ayaa dib uu ka yimaadaa leedahay sheekh al-faadil arrintan dhaqaalaha iyo arrintan in dumarka loo muujiyo jacaylka loo qabo waxyaabahaas wana lagu eedeeyaa haddaan ragga nahay tan kale dhaqaalaha hadda waddankan lama qari karo waxa weeye ninku wuxuu soo qaato waa wax la og yahay waxa baxana waa wax la og yahay marka dumar badan waxay ka cabanayaan dhinaca dhaqaalaha oo ay sawjaadkooda ku qabaan marka sheekh al-faadil falyatafadal mashkuuran wa maajuura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله وحيابها الله تبارك جل وعلا ورق دش كساري هي واجباتك ورب أقون دي سبحانه وتعالى وإلى الدمر كورا أي نفقيان سياسو الله كتاب كيسو كتقريري سنة نبينا لغو الشرحي ولغو فافاهي مسلمين كي نبينا dhaqanka ay tadbiiqiyeen oo ay dhaqan geliyeen saxaabada ka qaateen taabiciinta ay taabiciinta ka qaateen ilaa yawm alqiyaama ay culimada muslimiinta ummadda u sharxaan waajibka ragga Allah uu saaray waxaa kamid ah subxaanahu wa ta'ala inay waajib ku tahay inay dumarkoodu dumarka inay nafaqeeyaan nafaqadaasi waxay u khuduucaysaa awoodda ninka ذو سعة من سعته وأود الطفق لا يكلف الله نفسا إلا ما آت إلا وسعها إلا منك إنه غيركي سعيده وحاويا ووحاد الليت وين دعنا حتى الله عليه وسلم وقبلهم دهر وتيتر إن أبا سفيان رجل شحيح منك يزوج كذا أبو سفيان ونم بخيل saas ayay tiri xoolihiisa meesha uu dhigtana waan aqaan xoogaa ma ka soo qaadan karaa wuxuu ku yidhi nabigu sal ly salam haa wax adiga iyo caruurtaada idinku filan oo jaanis u helay khasaanadii iyo kaarkii haddaan gacmaha kasoo buuxsanaya aan ahayn wixii baahidiina waad ka qaadan kartaan ayuu nabigu halkaasuu nabigu gaarsiiyey in ninka loo dabamari karo xoolihiisa marka hadda gabadhaas su-aasheeda ay siday u soo qortay haddii ay tahay oy walaalaha u soo gaarsiisay ee ay noogu soo gudbiyeen ay xaqiiqadu saa u tahay waxa weeyaan waxaa u bannaan inay ninka xoolihiisa soo xaddo inay wax ka soo qaadato wax ayada iyo caruurteeda ku filan yani taasna waa xadiidka nabiga sala allahu calayhi waali wasalam laakiin waxaan ku dhihi laha horta balwaani oo gacan adayga iyo ciqaabka ay leedahay iyo dhibka ay leedahay iyo horta in xuquuqda la dayacayo ninka waxaan leeyahay ma ogtahay markaad reerkaaga wax ka bakaynayso inaad xuquuq dhan aad ku xadgudbayso awa ilaahay waajib uu ku saaray reerkaaga inaad u waasiciso reerkaaga inaad wax siiso reerkaaga ila akhiri dumarka laftooda waxaa laga yaabaa marar badan inay ragga ay ku dhibaan waxyaalo iska wariishana waxyaalo mataqaa aan markaa daahan bedel iyo kan bedel inay ku qasbaan baa laga yaabaa laakiin hadda su-aashu taa ma ahane nafaqadii reerka ayaaba lala'ya ilaahay ka baq tabaaraka watacaala xoolahan ilaahay baa leh xoolahan adigu malihid sabab baa lagaaga dhigay xoolahani ciddii lagugu soo dhiibay xoolaha soo dhiibay ee waajibka kugu ahay nafaqadooda sidaas ayaa lagaa doonayaa haddaad sii weyda waad ka dhiman hadda xoolaha aruurinayso ku adigoon abaal lagugu qabin ayaa wallahi lagaaga dhaxli soo kaagama fiicno marka caruurtaada iyo qaraabadaada in alla intaad awoodi karto adduunyada intaad joogto inaad kaga farxiso oo ayaga aad u waasiciso muslimiintana wixii aad ku bixin karta aad ku bixiso soo kaagama wanaagsano markaad bandiga ku guranayso oo xaaska ay ka gaajaysan tahay oo ay ka qaawan tahay caruurtaada ay ka baahan yihiin marka waa arrin aad iyo aad bukligana waa u liita wey waa cudurrada aadka khatarka waana cudurrada qalbiga ku dhaca gabadha waxaan leeyahay u sabar ninka una dulqaado biillahi tabaaraka wa tacaala
haddii aad garanayso oy noqoto inuu ijaarka idinka bixin waayo oy noqoto inay noloshiinu celina ay gashana sidii kalood u noolaan lahayd oo carruurtaada u noolaan lahaydeen waajib weeye inaad samayso oo ay kamid tahay intaad kaarka ka xaddo oo aad mataqaanaa iiteen raqamka sirta aad ka xaddo inaad kala soo baxdo waa xaq aad leedahay wallahu aclam ما شاء الله شيخنا الفاضل إلهي سبحانه وتعالى هكو بركيو الله كل صار مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك الرفيق شيخنا الفاضل مركز خير جرول